gudaha nabadgelyada agaasimayaasha waaxyaha shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha muddada dheer isku shaqaalayn imikaba aan ka tirsanay imikadan iyo martisharka kale saxaafaddu ka mid tahay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaynu halkan u fadhinaa in wareejintii agaasimahii aan hore u ahaa ee gobollada dhaqanka iyo siyaasadda waaxdii oo loo soo magacaabay saaxiibkay Mustafa oo halkan fadhiya ayaa halkan ku wareejinayaa waxaan uga baryaa in ilaahay xilkaa qaaday ku astro una fududeeyo kolley runtii waaxdani waxay ahayd muhiim u ah wasaaradda arrimaha gudaha waxaa hoos man jiray dhammaan madax dhaqameedka dalka jamhuuriyadda somalilan gobol kasta iyo degmo kastay ku nool yihiinba oo ah tiro ama nambar badan runtii manaan ka baafinayn ama aan ka sheegay waxaa kaloo hoos man jiray 14 gobol ee dalka jamhuuriyadda somalilan ka kooban yahay waxaa iyaduna hoos man jiray qaybta siyaasadda oo ka kooban ama ah haddii aan sharaxo guddiyada jaaliyadaha guddiyada beelaha jaanibka ee dalka ku nool iyo jaaliyadaha ka dhisan dalka jamhuuriyadda somalilan markaa runtii horta waax muhiima oo halbowlow ah ayay ahayd ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha waa waax hawl badan u baahan maamul iyo magaranaysaa iyo taxadir fara badan saaxiibka Mustafa waxaan leeyahay halkan waxaa jooga shaqaala iyo waaxda qaarkood inkastoo qolooyin maqan yihiin haddana kuwii wasaaraddu way joogaan insha allah wasaaradduna waa isbaran doontaan kolley Mustafana shaqadu ma cusbaa shaqooyin hore waa kasoo shaqeeyey inuu waa arag waa aqoon leh aad baan ugu rajoonayaa in xilkan kasoo bixi doono dhammaan wasaaradduna waxaan ka codsanayaa agaasimaha guud hormuudka uu yahay iyo shaqaalahii hore ee waaxda shaqaalaha iyo waaxda iyo shaqaalaha kale ee shaqaynta iyo agaasimayaasha waaxaa inay si habsami ah ama sidii aniga aan uga shaqayn jirnay ay ula shaqeeyaan agaasimaha cusub aniguna sidaasaan ugu ducaynayaa sidaas ayaan maanta xilkaa ugu wareejiyey walaalkay Mustafa oo loo soo magacaabay anigoo leh ku soo dhawow wasaaradda arrimaha gudaha oo aynu maanta ka wada tirsanay aniga lafteedu maan dheeraan dowladda hoose mantigay xogeeyey dowladda hoose markaa labadeenuba inaynu maanta halkan soo nimaadno inuu ka wada tirsanno wasaaraddii aad baan ugu faraxsanay waxaana leeyahay welcome to the Ministry of Interior. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهريوان السلام يا أقاسمها جودة وزارة arrimaha gudaha agaasimaha amniga shaqaalaha wasaaradda saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka cali waa run waa nin aan muddo dheer saaxiib ahayn maantana waa xogay iyo fulinta dowladda hoose aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan ee xil wareejinta كل وزارة يوم الحرب وده يوم واحد طور سنة وزارة دي عليها كلها واحد كلام محمد على اسمها جود إن شاء الله كل ما تعرف حكنا هذا بدنا يجمع فرنا واحد فينا يعاوننا هذا وفر أحسن هاي إنا كوسو بيرو وزارة دي عليها كلها شغل فرد بدن أو كل دوان وكسو شقي هدي لا هاي هذا حكنا واحد فينا يعاون إلى كسي ودونه وحوينا حلقة قرنك عبر السودية بان مركو بعدي مرة بعد بكم هنا قيا شغالها وزارته يو اسمها جود يو حقيقة من الدولة هوسه هدي إلى هيدا شغالنا واسفرتونا هل كانوا واكسي ودونه هدي إلى هيدا وأنا ما تنتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحها شرفت لكم شوكتا شغالها الدولة أحلى وسادة ما جودها شغالها كليش شغال مسرت كلامه وان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي ومدلح الوريجينات ونحكوك الوريجينات إنه أقاسميه هراء علي حسن وكنت howlwadana mas'uuliyadda sare wasaaraddan maanta noqday shaqada waxaan laga fogaanin iyo agaasimaha cusub Mustafa Ismaaciil
oo isaga bedelo maanta ku soo ka tirsan wixii maanta laga bilaabo wasaaradda arrimaha gudaha inuu ku kala wareejinayna sida laba mas'uul hadleen xilkii waanu kala wareejinay waa uun dee calaamadahoon si sabootiyeen waxa la shaqada cusubta Allah ugu garab galo waan ugu soo ducaynaynaa agaasimaha cusub waxaan soo dhawoon kula shaqaynaynaa wasaaradda waa wasaarad ballaaran ka furan hawl culus oo badan baa taala wasaaraddu waxay leedahay wasiir dawle wasiir ku xogeen iyo agaasimo guud iyo 6 agaasimo waaxood iyo sectionskoodii waxaad maanta ugu warjay waxa weeye midtii kuwii ugu muhiimsanaa oo gobolada dhan waxa culays badan bay meeshaas leedahay dadka la jaada oo xitaa iyagu hore soo arbaaday ku iman doono oo bariga galbeedka ugu iman doona waxa laga baahan markaa waxa weeye inaad si degan oo dadka ku imanayo kala dhaqanka oo kala xaafado farbadan oo kala duwan oo faram galbeed ilaa 1500 kilomitir bay soo jirtaa waa loo cadeeyay ee buraan maxaa la buraan oo maasha 1500 kilomitir inta ka dhacda ku imanaysa ونقول أهل كلها يمانية، أهل دخل كلها يمانية، مد مقدونية، مد مشاهد دونية، مد هرمك على كوارث، مد رجلي كشيء كينية، وبنات هوش المشي تعال.